wiilkayga shaqo ayaan kuu suubinayaa waa shaqaysanaysaa kadibna adigoo isku filan oo gabadhaada biilan karo ayaan kuu doonaynaa aniga xaqiiqdii qalbigayga intaa wuu ku dheeraa laakiin sidaa ay tahay haddiiba waalidiinta isku soo afgarteen waayahan ku dhahay kadib aabahay si degdeg ah ayuu shaqo igu bilaabay waxaan noqday qof waqtina wax barta waqtina shaqeeya xaqiiqdii gabadhaan jeclaa waxay ahayd qof garabkayga taagan waxay ahayd qof maaragtay mar walba ay dhiirigeliya aniguna waxaan awood u yeeshay inaan baxo gabadha reerkeedii soo barto si maaragtay intaan shaqeynayo wanaag aan ugu kasbado ugu dambeyntii waxaan xasuustaa anigoo shaqeynayo ayaa maalin maalmaha ka mid ah gabadha aabaheedii aan wacay aabba say tahay waan fiicanahay wuxuu igu dhahay wiilkaygii maxaa dhacay gabadha ma soo doonatid waayo gabadha aabaheeda waxaan noqonay saaxiib reerka mar walba waan u tagi jiray ugu dambeyntii waxaan ku dhahay aabe go'aanka adiga aa gaartay ayaan ma aragtay aniga jeclaystay wuxuu igu dhahay wiilkayga aniga awal kumaanan aqoonin hadda hota waad shaqaysaa laakiin wiil gabadhayda haysan kara qabi kara dhaqan kara inaad tahay waan ku arkay awal kuma aqoonin wiilkayga waad soo doonan kartaa xilligaa rabtidna diyaar waxaan u ahay gabadhayda inaan ku siiyo aniga aadaan u farxay waayahan ku dhahay aabe waxaan u imid aabe waxaan ku dhahay maanta anoo shaqada joogo ayaan waxaan isla hadalnay gabadha aabaheeda wuxuu igu yiri wiilkayga gabadha waad soo doonan kartaa aniga shalay kumaanan aqoonin laakiin maanta nin gabadhayda dhaqan kara ayaa tahay aabba wuxuu yiri anigu waxa ahay nin qool soo qaaday qoolkaygana kama hordhacayo wiilkayga shaqeey muddo yaraa ku dhiman waxaan rabaa anagoo balankii qaadnay inaan tagno kulley gabadhaas adigay ku joogtaa reerkana waa reer aad isfahanteen aniga gabadha aabaheeda xataa waan sheekaysanaa wiilkayga waayo gabadha inayna kaa fakanin darteeda ayaan gabadha aabaheeda anigu saaxiib u noqonay oo marmarka qaar meelaan isugu imaanaa aan ku sheekaysanaa waayaan ku dhahay aabe sidaa jecesha ugu dambeyntii waxaa la ii doonay gabadhii si qurux badan gabar Soomaaliyeed loo siiyo ayaa la ii soo siiyay waan isguursanay gabadhii nolol qurux badan oo farxada ayaan ku wada nooleen waayo waxaan ahayn lamaane 4 sano isjecel hal maalin aan wax muran iyo wax dooda dhaxmarin 3 sano xiriir jacayl anagoo leh ayaa go'aansanay isguursano laakiin waalidiinta ku soo heshiyay in wiilka shaqo bilaabo la yiri ayaan sanad ku shaqeynayay 4 sano kadib waxaynu noqonay lamaane isku xalaal ah guri wada daga mustaqbal wada leh aayahooda iyo noloshooda habeen walba iyo maalin walba ka fikira xaqiiqdii gabadha jeceshahay akuriyonaysay u dadaalaysay maalintii xaaskaaga noqoto waa maalin qiimo badan aadna u weyn xaqiiqdii waxaan bilaabnay nolosha wada jirka nolol qurux badan oo farxada lisu kalsoon yahay kaftan jacayl inta bay leedahay xaqiiqdii wuxuu waqtiga socdo waxaan isqabnay 2 sano markaan isqabnay ilaahay wuxuu wadaana ma siinin waxa bilaabatay xan suuqeed ayaa bilaabatay in la dhaho gabadhan ma dhasho waayay warkaas ayaa bilawday xaqiiqdii waxaan ku dhahay noloshaydii warkaan waan maqlayaa laakiin adigaan ku jecelahay dadka ma jecli noloshayna anagay gooni noo tahay noloshayna ayaan wadanaynaa wuxuu waqtiga socdo 5 sano ayaan isqabnay xaqiiqdii maalin maalmaha kamid ah ayaa gabadha walaashay ila dhalatay iyo gabadha xaaskeyga isku dhacayn markaas gabadha walaashay waxay tiri walaalkay kugu lugaaya waayo ma dhasha ayaa tahay xaqiiqdii anigu waan fadhiyay aad baan ugu naxay hadalka waayo dadka kale aniga gabadha waxaan go'aan ku gaarnay inaan dhagtaan gelino hadalkood dhagtaan ka bixino laakiin walaashay markii ku caysay arinta aadaan ugu murgay xaqiiqdii waan ilmeeyay walaashay waxaan ku dhahay walaashay waad iga weyn tahay ma awoodo hadal xun inaan ku dhaho laakiin abaayo gabadhan aad u jeedo haddii ay dhasho iyo haddii ay dhalin waa aniga jacaylkayga waa aniga xaaskayga waa aniga noloshayda wax walba ee tahay aniga ku jecel aniga aaminsan xaqiiq walaashaydii 5 sano ayaan isqabnaa 4 sano jacayl ayaan lahayn 9 sano jacaylkii aan soo wadnay marna ma dhacayso hadal qof uu leeyahay inaan ku burburino marna walaashaydii ma dhacayso wax walba ay tahay aniga ku jecel midda kale walaashaydii inay iyada tahay cilada
iyo inay aniga ahay sidee ku ogaatay abaayo gabadhan waa indhahayga waa noloshayda waa xaaskayga abaayo dadka magaalada murunkooda iyo doodooda wuna soo gaaraa laakiin ehelkii iyo walaashaydii miyaa caayda iyo xumaanta nagu bilowday ma inaan kala tagno oo kaliya ayaa ereygaanu leedahay walaashay hadalka uu la xumaaday gabadhii u tagtay way u hooyatay igaraale noqay dhahday xaqiiqadii dumar ahay haddaan carooday waa iska dhahay laakiin aniga waan ku jeclahay walaalkay siduu ku jecel ayaan ogahay walaalkay sida u bedeshay ayaan ku ogahay maanta heerkay nolosha u haysto waan ogahay abaayo igaraale noqo halkaas ay isku raari garayeen xilligaa wixii ka dambeeyay anigu go'aan waxaan qaatay inaan wadanka ka tago si aan xal u helo waxaan ku dhahay xaaskaygii noloshaydii aniga adiga 9 sano ayaa wada jirka nolosheena intaan isnaqaana tahay 5 sanane waan isqabnaa noloshaydii waxaan rabaa inaan baxo oon qurbaha aado si aan adigana qurbaha kugu wato oo halkaan isku daaweyno waxay tiri noloshaydii wax walba aad jeceshahay anigu diyaaran ku ahay waan ku jeclahay waana ku jeclaan doonaa wax walba adiga go'aan aan noo keentane diyaaran u ahay ugu dambeyntii anigu waan baxay oo markaa walaalahay oo dhan ayaa qurbaha jireen waan baxay waxa ii suura gashay inaan Ingiriiska galo nolosha Ingiriiska ayaan bilaabay maalin walba waxaan ku fikirayay xaaskayga quruxda badneed ee aan jeclaa sida nolosha u wada mideyn lahayn oo mid u wada noqon lahayn oo halkaan aan ku keeni lahaa wuxuu waqtiga jiitamo ugu dambeyntii waxaan keenay xaaskayga Kenya halkaas aan ugu tagay dhowr bilood aan la joogay waan soo noqday Ingiriiskan imaaday waxaan bilaabay dacwadii xaaskayga alxamdulillah waqti dheer kadib xaaskayga aniga waxaan ku midownay Ingiriiska waxaan bilawnay inaan dhaqaatiir tagno dhakhtarka ugu horeeyay aan tagnay Ingiriiska wuxuu dhahay labadiina ilmo isku ma dhalaysaan wax walba dhaco laakiin adiga hadaa reer kale yeelato waa dhalaysaa ida hadaa reer kale yeelato waa dhalaysaa laakiin labadiina ilmo isku ma dhalaysaan xaqiiqdii aniga wax muruga kama qaadin in muddaha markaan joognay oo iyada sharciga heshay ayaa haddana baxnay Jarmarka ayaan aadnay xaqiiqdii waqtiga ugu socday 17 sano ayaan isqabnaa wax u wada ilaahina ma siineen dadka qaar waxay leeyihiin adiga guurso ida dadka qaar waxay leeyihiin ninkaan iska fur waqtiga kugu socdo laakiin labadeena waxaan ahayn lamaano dadka hadalkooda aan dhageysanin isku kalsoon mar walbana isku xiran wuxuu waqtiga socdo aniga xaaskayga go'aan waxaan gaarnay inaan Ingiriiska ka soo goorno oo aan imaano Dubai oo halka aan ka bilaawno ganacsi waxaan imaanay Dubai halkaas waxaan ka bilaawno ganacsi waxaan ka qoonsanay labadeena inaan dhakhtar tagno anagoo ilmo raadinayno waxaan go'aan ku gaarnay oo wada jir ah hadduu Ilaahay u wadna siin waa ka hadduu Ilaahayna siin waayna in nolosheena iyo ganacsigeena aan wadano dhakhtar iyo ilmo halkani waa hooyga qisooyinka ahiigsi lambar 1 mar walba waxaan ku soo gudbiyaa qisooyin xaqiiqa kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya kuwa aad ku farxi doonto iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan mar walba waxaan diyaar ku laahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe noo dheh una share gareeya asxaabtaada hayloobin page-kana inaad follow noo dhahdo mar walba waxaan ku leeyahay ha guulaysto jacaylka waa anigoo ah Subar Carab